kulanti wacan oo wanaagsan toddobaadkii dhaweyd waxa aan idin ballan qaaday in aan warbixin idinka soo diyaarin doono adeegyada caafimaad ee dalka Turkiga waxa aan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa tayada caafimaad ee dalka Turkiga iyo qiimaha isku daweyntu sida uu yahay waxa aan idin sheegi doonaa cudurrada ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed ay halkan u yimaadaan si ay isaga daweeyaan iyo dhibaatooyin fara badan oo qisooyin murugo leh ay ku jiraan oo xaaladan ku saabsan waxa marti iigu ah xalqadan ama muuqaalkan oo igula jira Dr. Zakariya Hurre oo ah dhakhtar ku takhasusay arrimaha ama cudurrada haweenka ka soo baxay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho leh 2 sanadood oo khibrad ah oo uu ka soo shaqeynayay dhakhtarka Digfeer ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxa isna marti iigu ah walaal Khaliil Cabdiraxmaan oo ka soo baxay jaamacadda Sheffield Hallam University oo ku taala dalka Ingiriiska leh khibrad 12 sanadood ah oo uu ku shaqeynayay radiology-ga ama nidaamka lagu arko gudaha jirka haddaba muuqaalka ila dhamaadkiisa nala daawo sida aad la wada socotaan bulshada Soomaaliyeed dalalka ay caafimaadka u doontaan sanadahan u dambeeyay waxa kowka dalka Turkiga oo ay ku soo xusheen in uu yahay dal u ogol bulshada Soomaaliyeed in uu siiyo fiisa caafimaad isla markaana ku leh safaarad iyo qunsuliyad ee ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa dalka Turkigu waxa uu ka mid yahay dalalka adeega caafimaad ee dunida ugu fiican ama 17 sanadood ee u dambeeyay isbeddelka horumarineed ee dhanka caafimaadku uu ku socday waxa lagu tiriyaa dalka Turkigu in uu ka mid yahay 70 dal ee adeega caafimaadka ee ugu fiican dunida bixiya wuxuu ka mid yahay sidoo kale dalalka adeega caafimaadka marka la eego ugu qiimaha jaban Turkiga caafimaad ahaan waa wadan aad iyo aad u weyn oo la oran karo wadamada adduunka caafimaadka safka hore kaga jira ayuu ka mid yahay waxaan oran karaa waagii hore Soomaaliya Hindiya ayay tagi jireen hadda Mareykan iyo Yurub marka caafimaad noqoto wadanka soo raaca meelo fara badan oo Yurub iyo Mareykan kaga horeeyana way runtii noo caddahay oo Soomaaliya hadeen deganay way aragnay waxyaabahan ku door bidi karo caafimaadka Turkiga ajiibka ku yahay waxa kamid ah tayada shaqaalaha iyo aqoonta dadkiisa caafimaadka ka shaqeeya iyo runtii qalab aad u horumarsan oo badeecadaha dunida u iibgeeyo ayay ugu weyn tahay caafimaadku 40 milyan ayaa sanadkii 2019 Turkiga yimi 40 milyan holiday bay u yimaadeen boqolkiiba 80 waxa la oran karaa waxay u yimaadeen sidoo kale caafimaad marka arinta caafimaadka Turkiga aad bay u sareysaa qiimo runtii badanna way ku bixisay dawladda Turkiga iyo aad ugu mahadsan khaasatan dadka Soomaalida inoo fududeysay inaynu u nimaadno oo soo booqano waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah markaad soo bandhigto caafimaadka halkan qaybaha loo yimaado tusaale ahaan marka qofka misiga jabto oo kale hadeen tusaale soo qaadano wadamada Mareykan oo North America oo kale 42,000 ayaa qofka lagu daweeyaa Yurub 30,000 halkan 5,000 6,000 dollar wax la mid ah marka aad arki kartaa farqiga aqoonta iyo qalabka la isticmaalayaana waxaan anigu aaminsanahay inuu aqoonta caafimaadka ku dhex jira inay aad halkan ay u sareyso marka halkan waxaynu ku haysanaa qalab wanaagsan dad aqoon leh iyo qiimo aad macquul ah runtii bulshada Soomaaliyeed ee halkan imanaya intooda badan waxa ay u yimaadaan cudurro kala duwan balse inta aynaan gudagelin aan isweydiino su'aal in badan oo idin ka midi laga yaabo inay isweydiinayso oo ah sidee baan ku soo dalban karaa fiisa caafimaad si aan dalka Turkiga uga helo adeeg caafimaad oo tayo sareeya qiimihiisuna uu jaban yahay waxa inoo faahfaahinaya Dr. Zakariya marka qaabka lagu apply gareyn karo su'aasha way fududahay dadka Soomaaliyeed wadanka ay ku wada nool yihiin laakiin safaaradda
waddanka Turkiga laba meel ku taala oo midna waa safaaradii oo Muqdisho ku taala iyo qunsuliyadii oo Hargeysa ku taala marka qofka Muqdisho ka bilaabayna kuwa inuu haystaa warqadii digfeer waa inuu haystaa oo ahayd inaysan waxba ka qaban karin oo waddanka aan waxba looga qaban karin markuu warqadaas helo warqad kale ayuu halkan waddanka Turkiga ugu baahnaan doonaa oo ah invitation letter la dhaho oo isbitaalaha halkan ku yaal ay leeyihiin qofkaas oo Soomaaliya waxba looga qaban waaye annaga ayaan daaweyn karnaa oo cudurkaas qabo marka qofka labadaas warqad markuu isku helo wuxuu tagay CID oo warqad wuxuu ka helayaa inuusan dambi lahayn markuu intaas isku helo ayuu safaaradda Muqdisho ka apply gareyn karaa fiisaha online ayuu ku apply gareyn karaa balano halkaas ka qabsanaya marka qolo waxa jirta waagi hore safaaradda toos loo tagi jiray hadda qolo waxa jirta oo ka horeyso safaaradda oo dukumeentiyada ka qaadayaan ayaga marka dukumeentiyadaada iyo baasaboorkaaga iyo warqadii halkan Turkiga lagaaga soo diray tii digfeer warqadii CID-da iyo baasaboorkaaga ayaa isku geenaysaa ayaga marka safaaradda u geenayo halkaas ayaa fiisiga qofka lagu soo siinaya marka qarash ahaan waxa ku baxayo marka CID-da iyo digfeer iyo warqada fiisaha oo $60 ah iyo qoladan kale iyo adil lacag $200 ku dhawaad ayaa ku baxayso iyo warqadii halkan oo lacag deposit ah laga dhigo badanaa marka isbitaalada private ka ayaa sameeyo lacagayna qofka ka dhigan oo qofku markuu halkan imaado ay waxay leeyihiin waa lagu daaweynayaa oo qofkii lacag u taalo way marka lacag almost $100 ah ay qaataan marka qofkii inuu fiisa caafimaad halkan uu ku imaado lacag $1,200 ayaa uga baxayso qofka Muqdisho ah marka dadka Soomaaliyeed ee Hargeysa ku nool ayagana waxay marayaan procedure-kii lamid ah kuwii hadda aan ka soo sheekeeyay marka laga reebo digfeer meeshii ay ka tagi lahayn digfeer ma iman karaan oo Hargeysa joogaan marka isbitaalka weyn ee Hargeysa ay ayagana warqadii report ka soo qaadanayaan warqadii halkan oo invitation letter-kii oo isbitaalka halkan way ku lamaanayaan sidaas ay qunsuliyadda uga dalbanayaan haddaba haddii aynu ogaanay qaabka lagu iman karo dalka Turkiga oo aan ku dalban karo fiisaha caafimaad waxa isweydiin leh dalka Turkiga marka ay Soomaalidu yimaadaan maxay kala kulmaan dhabahan waxa jirta dhibaatooyin badan oo dhanka caafimaadka ah ama dadka adeegyada caafimaad u yimaada ay la kulmaan waxa jira qisooyin badan oo muruga leh tusaale ahaan intii aan baaritaankan waday muddadii 7 cisho ahayd waxaan la kulmay dhibanayaal badan oo Soomaaliyeed dadka qaybtood waxa ay go'aansadeen in aanay dhibtooda la wadaagin warbaahinta waxaad moodaa bulshada Soomaaliyeed in ay ku suntan tahay inay yihiin dad jabkooda iyo dhibaatooyinkooda qarsada laakiin wixii wanaagsan ay arkaan faafiya tusaale ahaan Turkigu in uu wanaagsan yahay ama noloshu jaban tahay meel kasta waa la gaarsiiyay dadka oo dhan ba isku dhiirigeliyay laakiin dhibaatooyinka dhanka caafimaadka dadka u yimaada soo gaadha waa la qarsadaa waxa aan la kulmay kiisas dhabahan qalbigu uu xanuunay markii aan la kulmay waxa ka mid ah oday Soomaaliyeed oo nin waayeel ahaa oo qabay xanuunada macaanka iyo dhiigkarka oo kaliyuhuna ay fadhiyeen ayaa waxa soo raacay inaan ay qaraabo yihiin waxa uu damcay inuu kali u bedelo dhakhtar baa la geeyay dhakhtarkii markuu qiimeeyay xaaladda qofkan bukaanka ah waxa uu go'aan ku gaadhay in aan qofkani qaliin xamili karayn oo qaliin la gelin karayn dadkii ehelka ahaa way ka soo qaateen dhakhtar kale ayay u geeyeen dhakhtarkii kale waxa uu yiri $30,000 ayaad bixinaysaan kalidana la idinku bedelayaa inankii baa qolkii qaliinka la geliyay waa la qalay kalidii waa laga saaray odaygiina waa la qalay wuxuu ku dhex dhintay intii operationka ama qaliinku u socday qoyskaasi waxa ay waayeen $30,000 waxa ay waayeen kalidii inanka waxa ay waayeen marxuumkii ay doonayeen inay halkan ku daweeyaan waa dhibaatooyinka dhaca dhibaatooyinka caafimaad ama dadka loogu geysto adeegyada caafimaad waxa ka mid ah dhibaatooyinkan ay sheegayaan doctorada igula martida ah muuqaalkan oo ay ka mid yihiin qodobada la yaab kale aan halkan ku arkay waxa ka mid ah qof dumara oo aan garanayo ayaa waxa dhakhtarka la geeyay miiska qaliinka la geeyay qaliinkii loo bilaabayo golofisiyada la xidhanayay toostay baraarigta waxa laala iyo waxa ka ogeydna ma jiro in dawo la siinayay moodaysa markii la suuxinayay waa la suuxiyay arintaa waxa ka shaqeeyay Soomaali la socday oo ay aamintay
wuxuu yiri gabadhan qalliinkaas ay u baahantay dhakhtarradu way jeegaraynayaan dabcan laakiin qofkan baa aqoon la bidayay sidaas gabadhii miiska lagu geeyay qalliinka dirqibay marka qalliinka la bilaabay haween bay toostay ka booday meeshii waxyaalaha runtii cajiibka aan halkan ku aragno waxaa ka mid ah in neglect badan uu ka dhaco oo hadda waxa la sheegay case maamo oo daa in catheter gabar neersan inta gelisay ay u hagaagi waayay ay ka soo bixisay markay ka soo bixisay ay ku taabatay sariirtii ay haddana maamadii gelisay waa neglect aad u weyn maamadii infection inay qaaddaa la sheegay runtii oo ilaa hadda ay u xanuunsan tahay dhab ahaan dhibaatooyinku intaa kuma eka haddaba waxaa isweydiin leh dhibaatooyinkan bulshada Soomaaliyeed loo geysanayo yaa ka mas'uula yaa u geysta Soomaalida dhibaatooyinkan dhibaatada halkan ka taagani caafimaadka Turkiga saa ka war haysan dhib badan baynu maqalnaa dhibta waxa kow ka ah run ahaantii dhakhtarada Turkida iyo dadka Turkida haynama geystaan dadkeena Soomaaliyeed ee jooga ayaa in kamid ah oo khaldan oo run ahaantii shaydan qaatay ayaa arinta aad ugu foogan waxay u badan yihiin dad luqadda bartay oo intay luqadda barteen dawladda suuq furan u arkay waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah qofku markuu wadanka ka yimaado qof weyn oo wadanka laga keenay oo waxa arkaysaa halkan yimi ilmo yar oo familygooda la soo hadlaya oranaya dhakhtarka ballan iga samee oo aan caafimaad waxba ka garanayn kiiba dhakhtarka markuu geeyo oranaya qofkan ma garanaya waxa hayaha la baaro in muddo 2 wiiga ayaa lacag iyo waqtiba wuxuu kaga lumaya qofkii baaritaanka in la ogaado marka dadka waxa cajiiba oo ay tahay inay aad u fahmaan war waxan aad u baahan tahay cid garanaysa weydii quraankeena iyo diinteena ayaa leeyahay fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun dhibaatooyinka ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed ay kala kulmaan dhakhaatiirta iyo goobaha caafimaad ee dalka Turkiga waxa kamid ah kow dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka sii dul faa'iida dadka bukaanka ah lacagana dul saarta la heshiiya dhakhaatiirta isla markaana qiimo fara badan qofka la yiraahdo waa lagu qalayaa dhowr tusaale ayaan idin siinayaa tusaale ahaan waxa aan la hadlay ama aan ogahay inaan Soomaaliyeed oo Ankara jooga waxa uu yimi adeeg caafimaad inuu kala kulmo dalka Turkiga markii la qiimeeyay xaaladiisa waxa la yiri lacag $15,000 ayaa kugu baxaysa inankii wuxuu ka gudbay oo uu fahmay dhakhtarka qora inaanu isku ekaysiin oo waxba aanu markiiba bixine bal horta dhakhaatiirta kalena uu eego oo uu qiimeeyo dabadna qiimaha ugu macquulsan uu qaato dhakhtar kale uu tagay 5,000 baa inankii lagu qalay markii baaritaan lagu sameeyayna 15 kan dilaalo u dhaxeeya dhakhtarka iyo qofka bukaanka ah ayaa lacagta in badan oo kamida ku lahaa waa dhibaatooyinka lagala kulmo dadka adeega caafimaad u imanaya Turkiga ay kala kulmaan sidoo kale waxa jirta in cilad dhanka turjumida ah ay la kulanto ciladaasi waxa weeye qofka turjumaanka ah ee bukaanka iyo dhakhtarka u kala turjumaya ma aha qof background caafimaad leh tusaale waxa aan idin siinayaa tusaale aniga igu dhacay waxa aan geeyay dhakhtar kamid ah dhakhaatiirta magaalada Ankara hooyo oo aan doonayay full check up in loo sameeyo dabadeedna baaritaan 2 maalmood qaatay ayaa la mariyay natiijadu markay soo baxday ayaa dhakhtarkii wuxuu u akhriyay natiijadii inan baa turjumay waxaanu ku turjumay in hooyo laga helay xanuun uu dhakhtarku ku sheegay inuu yahay hepatitis B hepatitis B ga sumadiisu waxa weeye HBV inankii turjumida sameynayay waxa uu u akhriyay HIV hooyo oo xanuun aanay qabin loo sheegay madaxba weynaaday warqadii baan soo qaaday waan eegay mise waxa ku qoran waa hepatitis waxaan ku dhahay muxuu ku sheegay AIDS baad qabtaa biigu yiri warqadii markaan eego hooyo Jones way waxaan u sheegay baan ku yiri waa hepatitis-ka oo aad walba isku ogay marka dhibaatooyinka ka dhacay ka mid tahay sidoo kale waxa dhacday hooyo Soomaaliyeed oo waayeel ah ayaa dhakhtarka u timi waxa dhakhtarkii uu qoray dawadan post la yiraahdo ama sumadeeda ama muuqaalkeedu halkan uu idin ka muuqdo ayaa loo qoray waa dawo dabada laga isticmaalo
inankii turjumayay waxa uu sheegay inay liqi doonto dawada hooyadii xabad intaa le'eg ayay liqday waa dhuunta istaagtay way sigatay maalintii dambe dhakhtarka ku soo noqotay waxay tidhi doctor waxaan wuu waaweyn yahay oo ma liqi karayo dhakhtarku waa buu shoogayba wuxuu yidhi ma tan buu ku yidhi liq waa dhibaatooyinka ka dhaca ee xagga turjumidda ka imanaya haddaba cudurrada ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed ay halkan u yimaadaan maxaa ka mid ah dadka ugu badan ee imaado kuwa waxa ah kansarka dadka oo qabo noocyadiisa kala duwan oo jirka ku dhaco dhaawacyada oo markii qaraxyo ay ka dhacaan wadankii wax looga qaban waayo waa kiisaska labaad ugu badan oo halkan la keeno dadka cudurrada wadnaha qabo oo wadnaha xididadooda ay xiran yihiin ama wadnaha cilad ka qabo waa dadka saddexaad ugu badan oo wadanka imaado xubnaha la bedelayo siiba kiliyaha waa dadka afraad oo wadanka runtii aad u imaado sidoo kale dadka ugu shanaad ee ugu badan imaado waa dadka qurxinta raba sida timo beerashada ama inay ilkaha hagaajistaan oo ilkihii inay qurxistaan rabaan iyo dadka lixaad ugu badan ee wadanka imaado waa dadka IVF ka ama caruurta rabaan inay isku talaalaan marka lixdaas dad oo cudurradaas kala duwan qaba ayaa wadanka Turkiga dadka ugu badan ee imaada ah oogan nahay intaan hawshan ku dhex jiray waxa kamid ah caruurta yar yar ee sabiga ah oo leukemia nooca la dhahay dhiigga ku dhaca aad ugu badan yahay si gaar ah waxaan jecelahay in aan u baraarujiyo cudurkan kansarka oo labada doctorba ay noo sheegeen cudurka ugu badan ee Soomaalidu ay halkan u timaado inuu yahay nasiib darro dadkeenu waxa ay yimaadaan iyaga oo stage dambe ama stage 4 ku sii dhow cudurkaasi 4 marxaladood ama 4 heer ayuu maraa heerkii ugu dambeeyay iyagoo ku dhow yimaadaan kadibna qofku halkan buu ku dhintaa waana lagu aasaa waxaan weydiinayaa markaa dadka Soomaaliyeed ee daawanaya ma qofka meydkiisa ayaad iska soo fogeynayseen oo doonayseen in Turkiga lagu aaso mise qofkani inuu caafimaado ayaa doonayseen haddii ay tahay sida aan filayo oo qofkan caafimaad baa lala doonayay maxaa loo dhayalsaday oo loo lahaa waa fiix waa buro hala siiyo bari wax kale hala siiyo marba dhir yaro dawaa marba lagu eegayay maxaa qofkani xanuunku markii uu ku cusbaa dhakhtar fiican loola doonan waayay lacagta aad la bakaylaysaan inaad qofka ku waayeysaan miidan ogeyn dhab ahaan dhakhaatiirta Turkigu markay arkaan heerka caafimaad ee qofkani uu marayo aad bay uga naxayaan qof waliba wuxuu ku odhanayaa qofka heerkan maxaad iga keentay ma dalkiisa isaga diisid ha ku dhintee marka walaalayaal dadkeena aynu u dadaalno waqti hore aynu soo qaadan gabagabadii waxa aan jecelahay in aan halkan talooyin ka bixiyo talada koobaad waxa weeye bulshada Soomaaliyeed waxa aan kula talin lahaa in ay joojiyaan wax la yiraahdo musuqmaasuqa Sayyid Maxamed Cabdulle Xasan Allah u naxariistay ayuu ahaa ninkii lahaa Soomaali musuq waa meheradeedii dalkan Turkiga dadka u yimaada xanuunada waaweyn ee lacagta badan loo baahan yahay ama ku kacaya oo kansarku ka mid yahay waxa ay haysteen in ay iska diiwaan geliyaan waxa la yiraahdo qaxootiga dabadeedna la siiyo insurance caafimaad oo ay bilaash u tahay dhammaan adeegii daweynta iyo qalliinadii laakiin waqtiyadan dambe waxa soo baxay Soomaali ka faashleynaya ama ka baayac mushtaraya in dadka loo soo saaro waxan lacag badanna ku qaadanaya qofkii miskiinka ahaa ee dalkii lacag looga soo arooriyay ee qaaraan iyo wax la isugu soo dardaray ku yimi iyaga lacag ka sii dhex sameynaya waa magafayaal cusub waxaan markaa kula talin lahaa horta dhalinyarada hawlaha ku hawlan Ilaahay inay ka baqaan oo waxana iska daayaan labo qofka Soomaaligii marka uu dalka imanayo fadlan qof xog caafimaad ama related la ku xidhan bahda caafimaadka wax u dirso oo iska hubi hal qofna ha ku ekaan saddex dhakhaatiirta Turkidu waxa laga yaabaa inay kala duwan yihiin waxa jira dhakhaatiir Soomaalida bartay bahaloobay aaminsan qofka Soomaaligii inuu yahay sanduuq lacag oo soconaya ha isku aaminin oo ha oran dhakhtarkan kaliya aanu tago isku day dhakhaatiir dhowra inaad markaa ka ogaatid waanay fiican tahay
marka aad timaadid baadhitaan aanad u baahnayn inaan lagu marin cudurka aad lagugu sheegay keliya in lagaa baadho oo kharash badani halka aanu kaaga bixin. 4 dadka turjumaanada ah ee aad kaxaysanaysaan waa inay yihiin dad daacad idin ah, dad aan Turkida gacan saar la lahayn, dad aan idinka baayac mushtarayn waa inay yihiin. iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu u barino in inta ku foogan bulshada Soomaaliyeed in ay ka baayac mushtaraan ama luuqada yara ay barteen dadka in ay ku waxyeeleeyaan, ilaahay inuu soo hanuuniyo oo inoo soo celiyo. gabagabadii adeega caafimaad ee dalka Turkigu ceeb ma laha, laakiin waxaa ceebta leh waa dhaqan innaga laynaga arkay. Soomaalida waxaa loogu shaqayn jiray sida Turkida loogu shaqeeyo, laakiin Soomaalidu wax badan iyaga ayaa iska fasaxaadinaya, iyaga ayaa iska xumaynaya. dalkani sharcigii inuu ina siiyo deganaanshuhu ogol yahay, fiisihii inuu ina siiyo ayuu ogol yahay, adeegiisa caafimaadna qaali maaha, weliba dhakhaatiirta dowladdu qaali maaha, aad bay u jaban yihiin. laakiin marka qof Soomaali uu qof kale arko Soomaaliya oo uu is yidhaahdo lacag fara badan buu qofkani sitaa, qofka Turkigana uu heshiis la galo, way adag tahay hadhow Turkidu sida ay noola macaamili doonaan. waxaan ka baqayaa in la gaadho heer Soomaalidu ay halkan ka cararaan. inta aynu muuqaalka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.